deriska waa beer la xawsaan maaldood waxa la sheegay inaa ii sheekeynaa wuxuu yiri qolo deriska hay la hadleen shabaabku yiraahdeen xawaadla waa gaaloobay baadama uu gaaloobay waxaan jeclaan lahayd kaale inaan nagula tagtaan oo aad nala wajahdaan oo aad nala dagaal tagtaan waxay yiraahdeen xawaadla asagoo muslimna ogeen qadiyaan ka taagna hadda uu gaaloobay tawro ma hayn ya nin muslim oo ku naxariisanaa boogay kuwiyo soo gaaloobay tawar ma haynay dhaheen ordu wax gaalada ayaga waaye idinka ma kuwa deriska ah waxa loo sheegay doqomo waa fahamsan yihiin marka dad aan la qaldi karin inay yihiin ayay muujiyaan idinkan horta aan la qaldi maalin dadka ku baahan maalin aad u baahan shalay waa la idin baahnaa maanta dadka idinka u baahan hadda dhiiqadii 36 oo waa ku jirtaan Soomaa shabaab idinka wax dabo asxaan idinka dhaxay ma jiraan dadkii yimaaday waxa la ka shaqeynaysaan inaad haysataan oo aysan idinka tagin oo aad hubisaan intuu shabaab idinkala dhameystiraayo ama dadka deriska ay soo gaaraysaan ama ha noqoto xagga ama inta ha noqotee horta dagaalka in lagu sii adkaysto sabab u noqda baadama aad sabab u noqoteen dadka Soomaaliyeed inaad tusi kartaan 12 saac oo xiriir shabaab in loo wajihi karo oo hal saac uusan hakada dagaalku isagil oo daqiiqad ka bas waa la socday waa si xoogaysanay horay gadaal anaga hadda waxaan noo dhow horadaasuna waxay tahay inta yar oo hadda noogu dabo meelaha oo waliba hadda uu leeyahay wani waa idin ka baxnay naga xara waa beentiis imanka horta meesha jooga inay Afghanistan ka dagaalamayaan iyo inay Soomaaliya ka dagaalamayaan iyo inay ka dagaalamayaan mabax iyo inay ka dagaalamayaan meesha la yiraahdo bu'aale kalama yaqaanin telefoon ma haysta waana dad qasban godadkan waa ku aragteen sidii xoolihii ayagoo xirxiran waana daroogaysan yihiin oo dad miirkooda tamaam yahay ma waxayna sameynayaan kuwii meesha ka dagaalamay oo waxa dhacay og iyo waxa agaarkooda joogana waa bixinayaan meel duuray geynayaan kuwa cusub oo in la soo bedelo meeshaan caadi taana waa keeni doonaa